sheeko xariira. Bari hore waxaa jiri jiray waraabo iyo dawaco. Waxaa la yidhi dawaco ayaa ari fara badan ka cuni jirtay reero meel degan. Arigaas oo riyo iyo idaba lahaa. Maalin dambe ayaa dadkii meel isugu yimaadeen waxayna ka wada hadleen sidii ay dacwada dhibta badan iskaga dili lahaayeen. Waxay dadkii talo ku gaareen in dabin loo dhigo dacwada. Dacwadii waxaa ku dhacday dabinkii loo dhigay. Dadkii waxay ku xidheen dacwadii geed jirridii si looga aarsado. Oo waxaa talo lagu gaaray in dab lagu dhex rido. Dadkii waxay soo gureen qoryo xaaba ah oo aad u badan. Waxay xaabadii ka buuxsheen god aad u weyn oo ay ka qodeen geedkii ay dacwadu ku xidhnayd agtiisa. Markaas ayay xaabadii dab ku huriyeen. Waxayna yidhaahdeen aan iska tagno oo marka dabku uu aad u shidmo ku soo noqono oo dacwo ku dhex ridno. Waraabe aad u gaajaysan ayaa wuxuu maqlay cidii dacwada. Markaas ayuu soo orday dif oo is yidhi aad ka eryatid neefka ay dishay maanta dacwadaas. Waraabihii wuxuu u yimid dacwada xidhnayd. Intuu yaabay ayuu ku yidhi noo dacwo yaa geedka kuugu xidhay. Markaas ayay dacwada tidhi waxaa iga xidhay adeerkay. Waraabihii ayaa haddana yidhi oo muxuu kuu xidhay? Dacwadii ayaa tidhi adeerkay aad buu ii jecel yahay. Wuxuu arkay in aan aad u caatoobay. Markaa wuxuu ii qalay wan weyn oo aad u buuran. Dabkaasna wankaas ayaa lagu karin doonaa. Aniguna waan diidanahay inaan cuno. Waayo gaajo ima hayso oo maalmahan oo dhan ayaan hilib cunayay oo waxaan ka cabsanayaa inaan calool xanuun ka qaado. Markii aan damcay inaan ka tagana intii soo qabtay adeerkay ayuu geedkan igu xidhay. Markaan hilibkii cuni kari waayay wuu i dilay adeerkay. Markaan hilibkii cuni kari waayay adeerkay waa kaa xidhay. Waraabihii ayaa intuu afka aad u kala qabtay ileen waa wax hilib iyo baruur jecel yidhi ahi aniga ayaa xadhigga kaa furaya ee aniga geedka igu xidh si aan anigu u cuno hilibkaas adiguna uga nabadgeshid. Markii dadkii soo noqdeen meeshii dacwadu ku xidhnayd si ay dabka ugu dhex tuuraan waxay u yimaadeen waraabe ku xidhan geedkii. Dadkii ayaa intay yaabeen yidhi waar waraabe meeday dacwadii? Markaas ayuu yidhi waraabihii aniga ayaa xadhiggii ka furay oo way tagtay. Dadkii ayaa yidhi oo maxaad uga furtay? Waraabihii wuxuu yidhi waxay tidhi dacwadii aniga gaajo ima hayso ee hilibka la ii keeni lahaa adigu cun. Markaas ayay dadkii isagii dabkii ku tuureen. Sidaas ayuu waraabihii isku darsaday hunguri-xumada iyo doqonninimada ku dhintay. Sheekadu saasay ku dhammaatay carruurey.